halkaa waxa ka dhacay maaha wax saxan waxa weeye wixii sax ah kooramku markuu buuxdo wuxuu ku buuxsamaa 9 nin 9kii nin ma fadhiisan 8 nin baa fadhiistay 5 nin xildhibaano kalena way hadleen oo shaashada waa laga daawado Soomaaliland way aragtaa marka wixii aan saxnayn in la qabto oo Soomaaliland xukuumaddu iska qabato oo wixii sharciga Soomaaliland dastuurka dhigatay lagu dhaqmo anaguna wuuna xukumaa waxa weeye anagoo aan ahayn mucaarad oo ah xisbiga kulmiye ee dawliga reerku waligiiba ahaa oo aanu dawladda nahay haddana wixii sharci daraa waxa weeye ee qaybo wadaan dawladdu waa inay u fiirsato magacaygu waa Chief Caaqil Cabdi Axmed Diriye Barre anigoo ku hadlaya sida caaqilka kaleba sheegay madaxa uqaasha Umar Jibriil ama ku hadlaya magaca gobolka Saraar iyo odayaasha iyo waxgaradka marka ugu horeysa waxaanu ka hadlaynaa sida caaqilka horeba uu sheegay Chief Caaqilka horeba uu sheegay marxaladda ka dhacday gobolka Saraar iyo gobolka Saraar dawladdu mas'uuliyiintu wasiiradu marka ugu horeysa badhna xaq darro cadaalad xumo taliimo xumo deegaanimo xumo midnimo xumo ayay ka wadaan badhna indhahay ka qarsadeen waxaan leenahay kuwa cadaalad xumada ka wada ee aanu warkooda hayno waxa uu aftala maxamuud xaashi iyo cali siciid maxamuud xaashi marka aanu soo noqdo waa ninka xilka labaad doonaya maxamuud xaashi waxaan leeyahay marka ugu horeysa waxa la yidhi niman baa beri waxay u tageen niman iyo ku cod ka doonaya talana lagu diray taladii lagu diray iyo codkii ay ka doonayeen markii ay weydiiyeen ba waxay yiraahdeen culmiyo idin wadaa maya baa la yidhi haddii col idin wadana nin hal naaskeed gaadha naga hadhi maayo buu yidhi haddii cod naga doonaysaan nin naga heli maysaan waxaan leenahay horta kelmadda aad tidhi ee aanu hayno waanu ku record garaynayna waana ku taala waqdhiicaankeedana waad helaysaa wax doonaata kuwada wax ka doonayso baanu nahay deegaankaad wax ka doonaysaa baanu nahay kuwa aad berito oran doonto isku meel baynu nahay isku deegaan baynu nahay waa sheekada soo gali maanta ta aad ka wado Saraarna warkeeda waanu haynaa taas horta kelmadda waanu ku record garaynayna oo waanu ku haynaa Soomaaliland waxaan leenahay ragga wax idin ka doonaya berito ka maalin taladoodii aayahoodii waqdhiicaankoodii taa maanta ragga yiri qasab wax ku kacay wasiirka arrimaha gudaha sida ku kacay waa ogtiin waa aragtaan berina waxa idin oranayaan taasan aqoonta la idinku hogaaminaya berito la idinku imanaya berito la idinku oranaya berito wax la idinkaga doonaya berito waa taa hadhow fiira gaara waxaan hadalkayga ku soo ururinaya marxaladda inamada kama hadlayno waa golo deegaanku iyaga waxooda kooran marka aanu bixinada waa sharci darro kooran markuu bixino waa sharciyo kama hadlayno shalayna mid baa ku fadhiyay maanta mid baa ku fadhiya midna beritu ka fadhiisanaya waxaan ka hadlaynaa arinta caynaba ka dhacday ee dawladda hoose ee la leeyahay 8 nin baa fadhiistay shanina xalay bay hadlaysay waxaanu tusaaleynaa wasiirka arrimaha gudaha isaga ole fulinteedii hadday sharci tahayna inuu jawaab cad ka bixiyo hadday sharci darro tahayna inuu jawaab cad ka bixiyo cid walbana wixii xukuumaddu egmatay inay nin kale ku saacido waa xaraan waxa weeye inamada labada inan waa inamadaydi waa noo siman yihiin halkan 7 caaqil baan ku joognaa oqaal kalena way noo maqan tahay u kala hiilin mayno waxaanu hiilinaynaa inay isku dhacaan ayagu yaanu ka hiilinaynaa annaga inamada iyadoo annagoo taagan ay gacanta isula tagaan nimanka kawsalka ee 7 ah kale arinta wadana waxaan leeyahay waxa lay waqtiga xumo uu dhamaada waqtiga wanaagsan uu dhamaada laakiin ceebta lagama maydho sida goluha deegaanku wuxuu bedelo ee sharciga ah ee sharciga ku qotonta hadaa isu kala bedeshaan wax eeday idin ku saari mayno
laakiin haddaa si gaar ay isula dhacnaan inamada meesha wada jooga ilmaadeerka ah oo sifa xaaraana ugu kala codaysaan waxaan arkayay waa 8 joogiyo nin meeluu ku maqan yahay ma garanayo xalayna shantii kala hadlayay adinkana waxaan idin leeyahay arrintaas boolajisna ka bixiya lamana kala maarmo inaa isbedeshaan idinka idin taallaa laakiin sifa sharciya isu kala bedela caybi canjarban odhan mayno wasiirada uu soo qaaday jiif caaqilku isagoo si dhiifla u hadlay haddana tol baanu nahay waxaanu leenahay wasiiradii baa tiin degaanka tol baynu nahay xigtaynu nahay waxbaynu kala doonaynaa mar hore iyo mar dambeba inamada u kala hiiliyana idinma lihin oo dhiifta iyadu maaha inamada midna tuuraysa midna qaadanaysaan laakiin wada sharciya raaca arrinkaas wuxuu geli doonaa sharci darrada ahay degmooyinka oo dhan iyo gobollada oo dhan marka qodob xaaraana la qaato ee la sharciyeeyo uu fidi doonaa degmooyinka kale u gudbi doonaa gobollada kale u gudbi doonaa dabeedna murug baa kaga iman doonaa Somaliland waxaanu leenahay arrintaas laga fiirsado annagu mucaarad ma nihin xusbul xaakimkaanu nahay waa la shaqaynaynaa laakiin wixii wax kala dilaya ee dadka kala fogeynaya ama doorasho ha noqoto ama musharax dee ka timi asxaabta sidaasoo kale ha noqoto salaan shirkaygan sharaa'id wuxuu ku salaysan yahay hawsha maayir ku-xigeenka degmada Caynaba ee la yidhi 8 baa fadhiistay xildhibaan maayir ku-xigeenka xilka ka qaadeen waxaan leenahay haddii taasi sifa sharciya tahay 8 xildhibaan intay fadhiistaan hadday maayir ku-xigeenka sharciga ka qaadayaan oo ay distoori tahay oo say u dhigeen yaa haddaanay ahayn ee ay tahay khayr sharci halkeeda ku qabdaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha hawsha iska leh ciidan lama leh keligaaba wasiir iska leh nin waliba wasaarad buu qaabilsan yahay wasiir haddii ay hawshaasi ay tahay khayr sharci halkeeda ku qabo haddii ay tahay sharcina dee waaba sida ay u dhacday taa intaasaanu ka leenahay talabaad waxaan leenahay waxaanu ka soo baxnay xafiiskii kulmiye oo aanu shirka ku haynay reerku waa kulmiye waynu isku ognahay maxamuud xaashi cabdi waa wasiirkayagii waana wasiir agtayada qaali ku ahaa waxaanu leenahay wasiir waxbaa nagu leh wasiirkaasaa dabada ka riixaya hawsha waxa dabada ka riixayo sharci ka dhigaya wasiirkaasaa nala leeyahay inay run tahay iyo inay beentoo la isku keen bacaynayo war uma hayno dee afkaaga kamaanu maqan oo nalaba joogtin waxaanu leenahay wasiir hadday taasi jirto aad dabada ka riixayso waxaanu leenahay waxa kuugu jira meel ka dhac baa kuugu jira iyo qiimo darro hadday jirto haddaanay jirin ma jirin ee waana lagu kaabiciyo boolojis bay noqonaysaa haddii aanay jirin taasina waa taa intaasaan kaga baxay naaqusnimo kuugu jirtaa haddii sharci darro aad jidayso dalka oo dhan baa sharci darradu ku jidoobaya 8 xubnood anigu deegaanka Caynabaan ahaa ee hore 10 sano soo ahaa hal dheer baan isku riixi jirnay bariga hore 7 xubnood marka ay sii tahay degmadu isku riixi jirnay waa tii la joojiyay 9 xubnood laga dhigay de goorma 8 loo soo rogay wadaadu alf waxma leh iyo waxbuu leeyahay dowladda Soomaaliland maanu ka haynaa mar waxa shaaciseen oo wareegta ku shaaciseen inta doorasho dhacayso inaan degmana laga bedelin maantana idinkii baa xal bedelo jideynaytii bal dowladdu ha isku noqoto hadalka labada hadal oo marna wareegta ka soo saartay inaan la bedelin wax bedel ka dhicin deegaanada marna iyada tan dabada ka riixaysa waliba si sharci darro ka riixaysa waxaan leenahay laga waantoobo wasiirka arrimaha gudahana waxaan leenahay ummadda dhaxbaad u tahay wasiirka amniga tahay adaa dowladda hoose xukuma haddii arrinta Caynaba ka dhacay sharci tahay dee fuli hadday dee sharci ahayn halkeeda ku joojo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى salaanta waxaan la qabaa cuqaashii iga horeysay haddaanu xisbiga kulmiyanahay odayaasha reerkan ah anagu xisbiga kulmiyaanu nahay gobolka Sool iyo Saraar gobolka Saraar iyo Saaxil iyo Togdheer saddexda gobolba waanu degnaa kaambeygii ayaa soo galay iminka dee doorashada oo la kaambeyn garaynaya waxaanu leenahay horta anagu xisbigaanu nahay waanu shaqaynaynaa waxaanu ku talagelaynaa inaan xisbiga u codayno
laakiin waxaanu uga digaynaa anigu halkaas qodobkaas baan ka hadlayaaye wasiirada campaign garaynaya inay reerka isku magacaa ay siiyaan campaign-gii oo dhan oo aan reerkan Cumar Jibriil aan waxba ku yeelanayn campaign-ga iyaga waxaanu uga digaynaa arinta inaanay si aanayeen xisbiga lugta u qaban ay arinta ka waantoobaan oo arinta ay joojiyaan waxa kale oo aan kelmad ku darayaa arinta rag baa haday sharci tahayna hal ansixiyo hadaan sharci ahayn hal la joojiye waa sharci darro waxa ka dhacay golaha deegaanka ee Caynaba waa sharci darro la hubo oo sideeda u cad weeye oo aanay dhici jirin oo aanay ansax ahayn sharci darradu hadii ay shaqaysona meel walba way gelaysaa miyay ansixinayaa hadii la koorm looma baahnayn ay shantii haday maayar doortaan shantii kalena maayar bay dooran doonaan oo waxay noqon doontaa mid kale oo ka sii darantii bay noqon doontaa shantaas markay maayar doontaana waa ansixin doontaan hadii ay sideedaan hadii aan koorm loo baahnayn marka waxaan leenahay wixii sharciya diyaar baanu nahay nin walba sharci buu ku fadhiyaa